Garowe waa magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu xiisaha badan Puntland, Soomaaliya. Magaaladani waxay ka mid tahay xarumaha ugu muhiimsan ee maamulka iyo dhaqanka. Garowe ma aha oo keliya magaalo casri ah, laakiin waa hoyga dhaqanka, ganacsiga iyo waxbarashada gobolka. Markaad soo gasho Garowe, waxaad dareemaysaa isku dhafka qadiimiga iyo casriyeynta. Dhismayaasha dawliga ah, suuqa dhaqanka, iyo jaamacadaha ayaa si wadajir ah u muujinaya horumar iyo fayo-qabka bulsho. Maanta oo aan ku qaadano safar aan ku sahmino taariikhda, dhaqanka iyo waxyaabaha soo jiidashada leh ee Garowe. Garowe waxay asal ahaan ahayd tuulo yar oo xoolo dhaqato ku nool. Dadka deegaanka waxay ku tiirsanaayeen xoolaha sida geela, lo'da iyo adhiga. Tuuladaasi yar waxaa lagu yaqaanay inay ahayd meel ay isugu yimaadaan beeraleyda iyo xoolo dhaqatada, halkaas oo dhaqanka iyo isdhexgalka bulsho uu si dabiici ah u kobcay. Intii lagu guda jiray qarnigii 20aad, gaar ahaan sanadkii 1950kii 1970kii, Garowe waxay bilowday inay noqoto xarunta ganacsi iyo mid bulsho oo muhiim ah. Waxaa la keenay adeegyada dowladnimada sida xafiisyada maamulka, isbitaalada, taasoo keentay in dadka tuulooyinka ku dhow ay u soo guuraan magaalada. Maanta Garowe waa magaalo leh wadooyin ballaaran, dhismayaal casri ah, iyo xarumo waxbarasho oo badan. Waxaa sidoo kale lagu dhisay hoteelo, suuqyo waaweyn iyo xarumo caafimaad oo si joogto ah loo horumarinayo. Magaaladu waxa ay noqotay meel muhiim u ah oo ganacsiga, waxbarashada iyo siyaasadda Puntland ku kulmaan. Garowe waa hoyga dhaqanka Soomaaliyeed. Dadka magaalada ku nool waxay si weyn u ilaaliyaan suugaanta, ciyaaraha dhaqanka iyo farshaxanka maxalliga ah. Xafladaha dhaqanka sida aroosyada, ciyaaraha iyo xuska ciidaha waxay soo jiitaan dadka badan oo ku kala yimid gudaha iyo dibaddaba. Suuqyada Garowe waa kuwo firfircoon. Waxaad ka heli kartaa xoolo nool, dhar dhaqameed, cuntooyin kala duwan iyo farshaxan maxalli ah. Ganacsatada magaalada ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaara xarumaha dhaqaalaha Puntland. Dadka Garowe waa marti-soor iyo dad isdhexgal. Inkastoo ay jiraan qabaa'ilooyin kala duwan, haddana waa noolaanshaha iyo ixtiraamka ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan ee bulshada. Magaalada waxay leedahay xafiisyo dowladeed oo casri ah, jaamacado, isbitaallo iyo hoteelo raaxo leh. Dhismayaal cusub ayaa sidoo kale ka turjumaya isku dhafka dhaqanka iyo casriyeynta. Jaamacadda Garowe waxa ay soo saaraan aqoon-yahano, xirfadlayaal ka shaqeeya horumarinta Puntland. Dugsiyada hoose iyo kuwa sare ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara kor u qaadidda aqoonta iyo xirfadda dhalinyarada. Wadooyinka isgaarsiinta iyo adeegyada caafimaad ayaa si joogto ah loo horumariyaa, taas oo ka dhigaysa magaalada mid casri ah oo la jaanqaadi karta magaalooyinka caalamiga ah. Garowe waxa ay leedahay goobaha dabiiciga ah ee quruxda badan sida xarooyinka dhul-beereedka iyo meelaha lagu cunteeyo ee deegaanka. Ciyaaraha dhaqanka, suugaanta iyo farshaxanka maxalliga ah ayaa soo jiita dadka booqda magaalada. Dadka soo booqda Garowe waxay ku raaxaystaan aragtida dhismayaasha qadiimiga ah iyo nolosha bulshada. Magaalada waxay isku dartaa casriyeynta iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee qadiimiga ah, taas oo ka dhigaysa meel soo jiidasho leh oo laga helo wax kasta oo bulsho dhaqameed iyo dalxiis ah. Ugu dambeyntii, Garowe waa magaalo ka turjumaysa taariikhda, dhaqanka, horumarinta bulshada. Waxay si gaar ah u muujinaysaa in dhafka casriyeynta iyo hidaha Soomaaliyeed. Waxay u tahay hoyga ardayda, ganacsatada iyo dadka jecel dhaqanka. Marka aad booqato Garowe, waxaad dareemaysaa isku xirnaanta bulshada, xarumaha muuqda iyo dhaqanka hodanka ah ee ka jira Puntland. Garowe waa magaalo lagu faano, lagu barto, laguna raaxaysto.